iyadoo oo la xaqiijinayo amniga guud ee magaalada Muqdisho ayay ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxa ay maalmihii ugu dambeeyay wadeen howlgallo lagu xaqiijinayo amniga waxaana howlgalladaas oo socday lagu soo qabqabtay waxyaabo aad u badan oo u badnaa maandooriyaal hub la sheegay in lagu dhici jiray shacabka ku nool magaalada Muqdisho iyo sidoo kale dadkii isticmaali jiray oo la sheegay inay ahaayeen kuwii dhibaatada iyo dhaca u geysan jiray shacabka ku nool degmooyinka gobolka Banaadir. afayeenka booliiska Soomaaliyeed oo shir jaraa'id u qabtay warbaahinta ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay howlgalkan iyo waxyaabaha maanka dooriya hubka iyo dadka dhaca geysan jiray lagu soo qabtay waxaana uu sheegay in booliiska Soomaaliyeed ay mamnuuceen in wixii ka dambeeya 6 saac habeenimo ay socdaan mootooyinka bajaajka iyo sidoo kale askarta hubeysan ee ku dhex socda magaalada caasimadda ee Muqdisho inta uu socdo howlgalkan lagu xaqiijinayo amniga Muqdisho si loo soo afjaro nabad la'aanta ay caadeysteen kuwa maandooriyaha caba iyo kuwa caadeystay inay dadka dhacaanba howlgalkan waxaa lagu soo qabtay sida idinkaba kaamirooyinkiina qaban karaan ilaa iyo 7 jawaan iyo ka badan oo xashiisha qamri kor u dhaafaya ilaa iyo 100 sidoo kale xashiishka aan cadadiisu tirsi lahayn baangadooyin tooreeyo la caadeystay maalmahan dambe in bulshada lagu dhaco guryahoodana loo dhaco sidoo kale waxaa halkan lagu hayaa tuugadii dhacaysay moobeelada kuwii waday bajaajada kuwii guryaha u boodayay ee qataarada jibinayay oo daraadba ay soo bandhigeen miidiyaha qaybo kamid ah oo gacanta lagu soo dhigay oo hadda hortiina fadhiya waxaan jecelnahay in awaamir badan oo howlgalka wajigiisa labaad bilaabanaya wajigii koowaad maanta halkaan ku xiran yahay wajigiisa labaad loo gudbi doona wajigaas oo keeni doona in aan lagu degdegin dib dambe inuu shakhsi wax dhaco waxaan jecelnahay in 3 digniimoodna aan saxaafadda la wadaagno tuugadii qataarada jabsan jirtay xaafadaha dhici jiray qaybood ugu badan waa la soo afjaray waana la soo qabtay sidoo kale tuugadii moobeelada dhici jiray ayagana waa la hayaa oo waa kuwan hortiina fadhiya sidoo kale mootooyinkii wax dhici jiray oo intooda badan ayagana la hayo qolyaha maandooriyaha iibin jiray oo ayagana shabakadoodii u weyneed ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo kaashanay laamaha kale amniga gacanta lagu soo dhigay sidoo kale tuugadii wax ku dhici jirtay tooreeyaha oo ayagana hadda gacanta lagu hayo ay idin hor joogan saldhigga xamar jabna ku sugan yihiin oo joint operation center keeni ahaa waxaan jecelnahay in 3 arimood aan baaq ugu dirno bulshada Soomaaliyeed tan koowaad oo ah askarta ka tirsan ciidamada qalabka sida gabigoodaba waxa lagu wargelinayaa inaysan dhici karin shakhsi hubeysan oo darees wata oo dhex wareegi kara magaalada Muqdisho gudaheeda ayadoo taliska xoogga dalka Soomaaliyeed uu maanta go'aan ka soo saaray booliiskana iyo laamaha kale amniga anoo afkooda ku hadlaayeen aan idinku adkaynayno in aysan dhici karin shakhsi qori wata oo darees wata inuu habeen madow iyo maalin cad dhex socdo magaalada Muqdisho aan ahayn ciidanka howlgallada gacanta ku haya ee ammaanka sugaya number 2 waxa la mamnuucay habeenkii wixii 6 saac ka dambeeya inaysan soco karin mooto bajaaj oo magaalada dhexdeeda aysan ka shaqeysan karin fiidka horan dadka ay adeegtaan wixii intii howlgalka uu socdo habeen madow 6 saac wixii ka dambeeya cidii mooto wada la arka ayadan inay dimbi tahay ay ku xadgudubtay awaamirta ka soo baxday laamaha amniga sidoo kale waxaan rabnaa milkiilayaasha bajaajada inaan uga digno inaysan shakhsiyaysa aqoonin ehelkiisa iyo meesha uu ka yimid aysan u dhiibi karin mooto iyo wax la mid ah sidoo kale waxa area-da liida ee ku yaala hoteelada iyo dadka ay degan yihiinba ee Cabdicasiis laga mamnuucay in askarta shaqada kule waxaan ahayn aysan qori la dhaafi karin jagboontyada laga kontroolo xeebta liida area-deeda dhammaan dignimahaas waxay qusaynayaan ciidanka qalabka sida guud ahaan goob kasto ay ku sugan yihiin waxaa looga digayaa askari kasta inuu qorigiisa iyo dareeskiisa xaruntiisa uu shaqada ku leeyahay dhigto xilliyada uu xaafadihiisa aadayo sidoo kale area-da liidana aan loo ogoleyn shakhsi hubeysan nooc kasta uu yahay marka laga reebo askarta ku shaqada leh area-daas maalmihii ugu dambeeyay waxaa kor u kacayay dhaca iyo dhibaatooyinka lagu hayo shacabka ku nool gobolka Banaadir booliiska oo ka duulaya arintaas ayaana wada howlgallo ka dhan ah waxyaabaha maanka dooriya iyo sidoo kale dadka dhaca u geysta shacabka ku nool magaalada Muqdisho dhawaan ayay ahayd markii taliyaha ciidanka militariga Soomaaliyeed General Odawa Yusuf Raago uu sheegay inaysan aqbali doonin askari militari ah oo hub ku dhex wata magaalada Muqdisho kii lagu arkana uu la mid yahay kan dhaca u geysta shacabka Soomaaliyeed. عبد الناصر سعدال بلن راديو.